dowladaha carabta iyo beesha caalamka ayaa diidmo siman ka muujiyay ciidamada militariga dowladda Turkiga ee bilaabay in ay u qulqulaan dalkaasi Liibiya si ay u difaacaan dowladda taagta daran ee dalkaasi. golaha wasiirada ee boqortooyada Sacuudi Arabiya oo maalintii Salaasada fadhiya shay ayaa muujiyay diidmada faragelinta dowladda Turkiga. warmurtiyeed ka soo baxay golaha wasiirada ee xukuumadda Riyaad ayaa lagu sheegay talaabada dowladda Turkiga ay qaaday in uu yahay mid xadgudub ku ah qaanuunka caalamiga iyo axdiga qaramada midoobay. diidmada boqortooyada Sacuudi Arabiya ka sukow waxa sidoo kale go'aanka dowladda Turkiga ay ku faragelinayso dalka Liibiya waxa si weyn u diiday dowlado ka tirsan midowga Yurub kuwaas oo cambaareeyay ciidamada dowladda Turkiga ay u daadgureynayso dalka Liibiya. dowladaha Ingiriiska, Faransiiska, Jarmalka iyo Talyaaniga ayaa sheegay in faragelinta Turkiga in ay sii hurinayso xiisada dalkaasi Liibiya waxayna ku baaqeen in la joojiyo dagaalka iyo sii wadida faragelinta dibadda. arrimahan ayaa ku soo beegmaya xili maalintii Khamiista baarlamaanka dalka Turkiga uu ogolaaday go'aanka dowladda Turkiga ciidamo ay ugu dirayso dalka Liibiya kaasoo walwal ku abuuray beesha caalamka iyo dowladaha mantiqada bariga dhexe. madaxweynaha dowladda Turkiga Rajab Tayyip Erdogan oo ka hadlay ciidamada dalkiisa u dirayo dalkaasi Liibiya ayaa sheegay in ay tahay kuwa difaacaya dowladda sharciga ah ee dalkaasi iyo in laga hortago musiibo bini'aadanimo oo haraysa dalka Liibiya. xeelleerayaasha carabta ayaa siyaabo kala duwan u arka faragelinta dowladda Liibiya ee xilligan timid. haddaba Cabdulaahi Maxamuud Garweyne oo ka faallooda arrimaha carabta iyo islaamka ayaa faahfaahin ka bixinaya ujeedooyinka dowladda Turkiga ay u faragelinayso dalkaasi Liibiya. waxaa ku soo beegay xilligan howlgallada Turkiga ay ka fulinayaan Liibiya sidoo madaxweynaha Turkiga Erdogan sheegay oo ah in laga badbaadiyo xukuumadda caalamka aqoonsan yahay iyo qaramada midoobay aqoonsan yihiin ciidamada hogaamiyo Khalifa Haftar balse waxaa ku hoos duugan dana dhaqaale iyo mid istiraatiijiyadeed oo ay ka mid tahay in la adkeeyo heshiiskii dowladda Liibiya caalamka aqoonsan yahay la gashay dowladda Turkiga oo ahayd in la dhiso marin u dhaxeeyo wadamada Liibiya marin badeed u dhaxeeyo wadamada Liibiya iyo Turkiga oo ka soo bilowdo koonfur galbeed Turkiga ilaa waqooyi bari wadanka Liibiya. waxaa kaloo ka mid noqon kara oo lagu soo dari karaa mid dan ideology khusaysa dowladdan hadda uu hogaamiyo Fayez Sarraj waxay ideology ahaan ka tirsan tahay islaamiyiinta ay ideology ahaan ay xisaabsan tahay oo ikhwaanul muslimiinka ay runtii ay aragti ahaan ka agdhow yihiin. xeelleerayaasha arrimaha amniga iyo militariga ayaa sidoo kale ka digay faragelinta dowladda Turkiga ee dalkaasi Liibiya waxa ayna u arkaan mid dagaalka ka socda dalkaasi sii hurinaya. haddaba Cabdi Yaasiin Yool oo ah saxafi ka faallooda arrimaha bariga dhexe ayaa sharaxaya saameynta ciidamada Turkiga ay ku yeelan karaan qalalaasaha ka alowsan dalkaasi Liibiya. waxaan u arkaa in faragelinta Turkiga uu ku sameeyay Liibiya ay keeni doonto in dalka uu ka dhaco dagaalo. inta badan dowladaha carabtu waxay taageersan yihiin hogaamiyaha Khalifa Haftar oo isagu bariga Liibiya ku xoog badan. marka arinta Liibiya way ka sii daraysaa waxaa ku dagaalamaya quwado caalamiya sida Ingiriiska, Faransiiska oo isku dhinaca iyo Talyaaniga iyo oo iyaguna dhinaca taageersan xukuumadda Tripoli. waxaa jooga dalka Liibiya oo ku nool 1 milyan oo qof oo asalkoodu yahay Turki ayaa ku nool dalka Liibiya sida waxay ku nool magaalooyinka Tripoli iyo magaalada Masrat oo kale. marka laga yimaado maslaxadaha Turkigu ku leeyahay gudaha Liibiya wuxuu ilaashanayaa dadkiisa ku nool gudaha Liibiya ee asalkoodu yahay dadka asraagta ama Turkida. arrimahan ayaa ku soo beegmaya xili ciidamada uu hogaaminayo Generaal Khalifa Haftar si rasmi ah u la wareegeen magaalada Sirta oo 450 kilomitir u jirta caasimadda dalkaasi ee Tripoli. dalka Liibiya ayaa qalalaaso dhinacyada siyaasadda iyo amniga ka taagan tan iyo sanadii 2011 kadib markii xukunka laga tuuray Muammar al-Qaddafi oo dalkaasi xukumayay muddo 40 sano.